بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada channelkayga hana ilaamina subscribe. ma qiyaasi kartaa adduunka oo aan qurux lahayn? ma jiri doontaa nolol? ma sii ahaan doonaa adduunka mid qurux badan haddii maalmihiisi oo dhan habeen loo bedelo? halkan waxaan kaaga jawaabi doonaa su'aashan, waxaana ogaan doonaa maxaa nagu dhici kara haddii taasi dhacdo. maxaa dhici doona haddii qoraxdu la waayo? qoraxda ugu horeyso markay soo baxdo iftiinka ama ilayska ugu horeeyo wuxuu dhulka soo gaarayaa ilaa 8 daqiiqo kadib. sidaasi darteeda ma ogaan doontid qoraxda inay tagtay ilaa 8 daqiiqo ka bacdi ayaad ogaanaysaa qoraxda inay jirto iyo in kale. lacalla haddii ay dhacdo in qorax soo bix waydo kuma noolaan karno mugdi. waxaanu arki doonaa xidigaha tamarta dhulka ku haysanay way sii jiri doontaa, laakiin muddo kooban oo yar ayay shaqaynaysaa. xataa waxaan awoodi doonaa inaan aragno meeraha Saturn oo noqon doona meeraha nugu dhow ee saacado keli noo xigi doona. laakiin waxaa istaagi doonaa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee dabiiciga ah oo ah iftiinka qoraxda, waxaana sababi doonaa in uu geeduhu iyo dhirta dhulka ka burburaan. waxyaalo badan ay saamaynaysaa, weliba bini'aadamku khatar weyn ayaa soo wajahayo. dhibaatada ugu waaweyn ay dhacayso waxay tahay heerkulku inay hoos u dhaco, waxay gaaraysaa 0 celsius. sanad kadib dhulka heerkulkiisu isku celcelis ahaan ay gaarayso 101 celsius. xad dhaafka ah ee hoos u dhacayo heerkulka cimilada ayaa badweyntu ugu dambeyntii barafoobaysa, gaar ahaan biyaha sarkeeda. saynisyahanada ma hubaan hadduu bini'aadamku ku noolaan karo dhulka korkiisa haddii isbeddelkan weyn dhaco, laakiin waxay og yihiin inay noolaan karaan xayawaano badda hoostiisa ku jira oo ay sii noolaan karaan bilaayiin sano, waayo nolohooda kuma xirna iftiinka qoraxda. qoraxda dunida waxay ku wareegataa 67,000 miles per hour. hase yeeshee haddii qoraxdu la waayo waxaa carari doonaa dhulka oona duuli doonaa isla waqtigaas oo kale oo ah 67,000 miles per hour. taasi waa haddaysan meeraha kale ku dhufanin. waa mahadsantihiin daawadayaal, ha ilaamina subscribe and like.